عادي معها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة جرايد waxaan ugu talagalay waa qodobadii aan ku daba joognay eedayntii aan u soo jeedinay xukuumaddii hore iyo xukuumaddan ee ku saabsanayd xaraashka hantidii qaranka ee la xaraashay ee lala wadaagay madaxda Soomaaliya. eedaynta ayaanu weli ku daba joognaa. shirkii jaraa'id shalay ay isku difaaceen Maxamed Xaashi iyo Saleebaan Gaal arrintaa ku saabsanaa ayaan doonayaa inaan wax ka idhaahdo. marka ugu horeysa halkan 7 sano ayay xukuumaddii hore gacanta dalka ku haysay. 7 sano waa wada ogtihiin. waa 7 sano abaaro iyo eedaad iyo sicir barar iyo dhibaatooyin badani ay qaranka soo mareen. 7 sano oo sidoo Maxamuud sheegay horumar ma ahayn, waxay ahayd 7 sano oo dadku ay dhadhamiyeen dhibaatada ay leedahay dawlad xumaantu. waxay ahayd 7 sano oo Soomaaliland la baray xukun caailadeed hore uga jirin. waxay 7 sano oo wasiirka caadiga ahi oo wasiir kale ka amar qaato horena Soomaaliland taago ma dhicin. 7 sano runtii la oran karo waxa soo koobmay ama yaraaday aaminkii qarankan ay isu qabeen muwaadiniintu. 7 sano ka hor Soomaaliland meel bay u socotay, way muuqatay, mowqifkeeda iyo arrinkeedu wuu muuqday. waxa la tuuray ugu horeyn waa ogeydeen oo dawladda kulmiye la timi in ictiraaf raadintii la baabi'iyo, wada loo furo xamar oo kaliya in la hadlo oo aan iyada la ogolaan in meel kale ictiraaf laga doono. golayaashay mariyeen, way sharciyeysteen, xamar oo quraan la hadlaynaa bay yiraahdeen wax ka doonaynaa. waa ogeydeen, waa la soo xiray dhammaan xafiisyadii dibadda lagu lahaa ictiraaf doonka ee madaxweyne Riyaal uu sameeyay. waxa la sameeyay waxa la soo koobay doonisi dadkan ay doonayeen inay dadka dunida ka dhaadhiciyaan inay qaran jira oo ictiraaf doon ay yihiin. ujeedana laga lahaa waxa heshiiskan hadda aad uga qeylinayaan ee DB Wall iyo saldhigay bixiyeen ee aan leenahay Soomaaliya la saxiixdeen ee uu sheegayo wasiirka arrimaha wasiir dawladda arrimaha dibadda ee Imaaraadka uu sheegayo iyagu ay dafirsan yihiin. heshiiskan oo kaliya maaha, heshiisyo aad u fara badan iyo arrimo aad u fara badan oo laga fuliyay halkan oo Soomaaliya ay daraf ku leedahay saxiixday baa jira. kaasoo kaliya maaha ee kan wuxuu saameyn ku leeyahay horta waa saldhig military oo dalkii laga bixiyay. 2 waxa weeye dekadii Berbera oo ah wadnihii dalka oo dhammaan la dhaxal wareejiyay. madmadowga faraha badan ee heshiiskaas saaran ee ku gadaaman waa ka keenay in ilaa iyo maanta laga ilaaliyo in warbaahinta loo keeno, in ummadda loo sheego. heshiiska ay leeyihiin Cabdiraxmaan Cirra saxeexay oo golaha markuu joogay baa la mariyay. dadka in la wareeriyo ma heshiiskaas wuxuu ah inaanu heshiis gallo noogu coday baarlamaanku ugu codeeyay iyagoo xaq u leh inay marka horeba heshiis galaan oo xukuumadda ay heshiis gasho. ayay waxay keeneen arrin khaldan oo ah heshiis baanu galeynay, heshiiska noo sii ogolaada inaanu heshiis gali karno. khiyaamay ahayd, way qoran yihiin oo wuu yaalaa heshiiskaasi. heshiis maaha maanta la oran karo waa heshiiskii lagu heshiiyay DB Wall la oran karo maaha. heshiiska DB Wall lagu heshiiyay darafka saddexaad ee saxeexay waa Soomaaliya sida uu sheegay wasiirka warfaafintu sheegay. waxaan Maxamuud u sheegi lahaa Maxamuud dadkaasi sida aan sheegay 7 sano dhibaato badan bay soo mareen. maalintii ugu horeysay xukuumaddani ay ka tagtay ay timina weydinkii is urursaday idinka wasiir ah oo doonay ummadda inaan la hadashaan. waanaga idin nidhi adeer ummaddu way idinka raysatay, aragiina ma doonayso, bal kuwanaanu tijaabinaynaa soo noqonina. nasiib darro shalaad soo noqotay, shalaad saaxadda siyaasadda ku soo noqotay. aad baan uga xumahay. adigu waxa tahay ninkii hawada Soomaaliya ku wareejiyay baa tahay.
adeerka adigoo ciidanku garabsanaya ka midana saldhigga militariga iyo dekadaaba kala saxeexay Muqdisho weey haddaanay taasi jirin heshiisyadii aad ku gasheen ilaa doodaadu waa inaad caddaysaay ilaa arrinkaagu waa inuu jidmariyo dadku kula eegahay waxa weeye heshiisyadii aad gasheen ummadda hor keena kelmadda aan idin leenahay fahma caay maaha oo aflagaada maaha oo Soomaali weyn baatiin maaha oo halkan ka dhacdeen maaha waxa weeye adeer waxaana saxiixdeen ee aan la saxiixateen ama imaaraad ama cid kala dhaho ummadda u keeno tusa horta inta ladin kala yahay waa inta Saleeban weligiiba wuxuu soo muuqdaa marka ay arrintu meel aan looga baahnayn ay taaganta ama muddo kordhin ama sidaas oo kale khiyaamo qaran oo lagu haysto ciidu kan naxayo oo isagu ku jiro waxay ahayd mararka loo baahan yahay Saleeban gaal ee dalka uu wax ka qabasho leeyahay ee uu wax tar doonayo ee arrimaha qaranku ay murgayaan inuu soo baxo hadlaba ahayd bal u fiirsada inta jeeru Saleeban hadlay waa muddo kordhin waa difaacid dad gaar oo difaacayo lama arko odaga dhan ee qaranka golaha guurta loo dhiibay lama arko maxamuud wuxuu sheegay inay kala siyaasaddu wanaayeen weligiiba wadani iyo kulmiye waa sax waa runtiis isku siyaasadda maynan ahayn isku qorshana ma ahayn iyagu qorshahooda iyo siyaasadoodu waa sidaan idin sheegaya waxay ku saleeyeen inay Soomaaliya kaliya la hadlaan inay Soomaaliya wax la saxiixdaan inay xafiisyada dibadda dhan soo xiraan in qorshahooda ay Soomaaliya ku sargooyaan oo la hadlaan la hadalkii muxuu dhalay wuxuu dhalay in hawadii la qaatay wuxuu dhalay in badii la wareejiyay wuxuu dhalay maanta qarannimadii in la dafirsan yahay oo ay halkii ay Soomaaliya ay joogtay halka sokaysa ay maanta halka xiriirsan ee arrintii taagan tahay markii hore waxba ay mataqaana naga xishoon jireen maanta laakiin haybadeennii iyo qarannimadeennii hoos bay u dhigeen waxa uu wadani weligiiba siyaasiyan aaminsanaa oo uu kaga duwan yahay kulmiye waa inaan hantida qaranka la xaraashin hantida qaranka xaraashkeedan uu kulmiye ku bilaabay maalintuu yimi maanta waa ogtihiin oo jaga bannaan ma jirto dhul bannaan ma jiro wadi wata la bixiyay hawadiina waa taa la qaatay hawada waxa ka mas'uulahay maxamed xaashi maanta way maqan tahay oo Soomaaliya la wareegtay waxaan warar ku haynaa in saxiix bad uu maxamed xaashi leeyahay inay hawada ku wareegtay maxamuud oo maalintaan isugu nimi Sheraton Addis Ababa isugu nimi ee aad halkan wafti kaga tagteen ee ku beegnay doorashadii ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhacayay ee uu ninkan kale ku soo baxayay waynagii isla maalinta ay doorashadu taagneyd isugu nimi Sheraton idinku waftiya waydinkii ku socdo wafdiga ballaaran ee kulmiye iyo isugu jira xukuumadda isugu jira waa tii maalintaas sidii ay idinku doorasho ku jirtaan ku dhaloolayseen miyaa laga helay Xasan Sheekh Maxamuud oo aad habeenkii seexan weydeen wataan idin la yaabno idinku ninkan maxay idinkaga xidhan Xasan Sheekh Maxamuud doonisiisan maxay idinkaga xidhan shirarka markaa galayseen ee wasiirkii arrimaha gudaha aanba soo koobay iyo wasiiradii darafyada ka socdayba iyo beelaha dhex qaar ka socda kaga tagteen meeshii aanu fadhinay ee in kooban oo gaar ah ku gasheen shirki Soomaaliland kaga soo dhoofteen inay u dhoofeysaan arrimahaasi abeeska uga dhaadhicisaan Ethiopia runtii arrinkaasi maalinta madmadowgii saaraa unba haddana saaran cid idin la og wasiiradii markaa idin la shaqeynay idin lama oga oo golayaashu idin lama oga oo dadweynuhu idin lama oga waxa aad saxiixdeen ee aad qorteen cid idin la ogo maanta aynu nahno way la og tahay ma hayno waxaanu haddaba doonaynaa falcaytay af lagama dhowro halkan waxaad yaala dambi loo haysta madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda jooga la yaab ma leh maxamuud adigu ahaa ninka madaxweyne cigaal impeachment gareynaya madaxweynuhu ogolaaday adigu ahaa ninkii ku mudiciga ahaa madaxweyne cigaal ee lahaa waxa weeye hal impeachment gareeyo madaxweyne cigaal halka uu sharciga iyo difaaca ka gaarsiisnaa waa tuu isku difaacay sharciga hal nin ayuu ku baxsaday oo madaxweyne ku noqday sidaas oo kale geesinimadaas aanu ka rabnaa in ay sameeyaan madaxweynayaashan kii hore iyo kanba inay sharciga u hoggaansamaan in la keeno wixii la saxiixay la keeno inta maalinta aad ku lahayd Saleeban aad ku lahayd madaxweyne cigaal aad ku lahayd
الله هيد هلا إمبيج كريه وكا أقلا أنتي بنودنا وحنو لنا هاي مدحوين موسى وحنو صحيح هلا كانوا مدحوين سيلانيو تاريخي سوي دماتي وأنا قرنتي مداد إيمن كدب قري كري سماها دالكم وحو كاga tagay isagoo guryo waaweyn hodholo waaweyn dhistay isagoo sheerka shirkadihii u bixiyay isagoo wixii uu umada lahayd qaatay buu maanta ka baxay xukunka waxa chance haysta oo maanta loo baahan chance-kaas inuu ka faa'iideysto oo qarannimada iyo dalkan jiritaankiisa iyo sharciga ilaalintiisa soo celiya ninka laga rabo ee chance-ka haysta ee maanta inay lumin u baahan waxa weeye madaxweyne Muuse la rabo inuu daba qabateeyo oo aanu taariikhda madow ninku maalin buu meeshan joogaya wuuna ka tagaya horeyna wataynu ka taagooda hadalay waxa way maanta Muuse joogo wuuna ka tagaya nin waliba wuxuu kaga tagay baa qormaya Siilaanyo adigu uma qori kartid taariikh aan lahayn uma qori kartid taariikhdu leeyahay waxa way gurigiisa halkan ku dhaxyiilay masaakiinta inuu maanta qasri yahay hoteelada ugu waaweyn magaalada inuu ku leeyahay dibadda inuu imaaraadka qudhiis ka dhistay gurihii ugu waaweyn ee milyuumaad dollar uu ka dhistay ingiriiska uu ka dhistay waxa soo hantii nin baa mishtar ma manu haysan shalay markuu orday xisbiga mucaaradka ahaa adeer adiga kuwa dhisatay ayaa yaala marka wax way hantidan qaranka ee masaakiinta laga soo ururiyo canshuurta ee dadkani ku gaajoonayaan ee ku dhibaatoonayaan ee ku halgamayaan ma aha wax si sahlan la isay tagay ma aha inaad afmishaarnimo iyo inaynu oranayno wuu soo halgamo bari buu halkan ka tagayo habeen buu halkaas seexdayo ninkan waa ninka duwan dadka oo idinkuna Soomaali weyn baa tiino halka mid kaaga hadhaysa ma waxaanu qabnaa in sharciga loo hogaansamo waxaanu qabnaa waxaanu ka hadlayno waa wax kooban waxaanu ka hadlaynaa adeer waxaad sameysaan wixii aad la saxiixateen imaaraadka bal ii kaadiyo oo tii xamar halkan dhiga oo imaaraadkan waxaad la saxiixateen oo dhammaystiran keena xafiisya u furateen aan lacagta ku shubateen dibadda oo aan sharci ahayn dhibaatada ummadda ku haysan way xad dhaaftay waxa aanu doonaynaa in sharciga loo soo noqdo ixtiraamka sharciga un bayna kala saaraya maanta Soomaaliland waxay taagan tahay meelaynu isweydiino Soomaaliland sidee u soconaysaa xaggay maraysaa maxaa ka khaldamay maxaa waayo waa in la joojiyaa sababtu ku tahay waxa weeye 30 sano dekada saxiixdeen saldhig military saxiixdeen Soomaaliya bar saxiixday baa la yiri annagu maanu oran Soomaaliya may oran waxa yiri nimankii Carbeed ee aalahaydeen weyn ogol yihiin baa yiri afkooda laga haya ilmaadeen real waxaanu doonaynaa lama fogeeyo arrinka uu kooban yahay wixii aan la saxiixateen nimanka keena oo waxa ay khusaysaa maanta arrintani xukuumadda hadda joogta rag hore oo fara ka yaaleen oo iyaguba dunuubtoodii hore loo haysto oo la rabo xukuumaddan inay wax ka qabato haddii xukuumad sharciya tahay maanta difaac loogama baahna difaaca waxa laga rabaa xukuumadda maanta joogta inay iyaduna isfurfurto dadka hore ee uu Maxamed Kay mid yahayna wixii ku maqnaa ay ka soo qabato ayaa loo baahan taasana inaga oo dhan in anfacaysa haddaynan sharciga ixtiraamin haddaynan inagu isdhageysan waxa aynu dalbanayna haddaynan mar walba sheeko kale haddaynan sidaa yeelin dalku way naga xumaanaya waa inaynu mar walba qofku wuxuu ka hadlayo weelena waxaanu ka hadlaynaa war heshiiskii golayaasha marisayna feeg buu ahaa Saleebaan oo heshiiskaad maalintaa meesha marisay maxaa ku qornaa barshuud yar oo calanka Soomaaliland dusha kaga daabacan yahay oo af Soomaali ku qoran ayaad keentay sifa inqilaaba xildhibaanadii waad leysay qaar waxaad ka saartay madashii wax ku qoran oo saxiix laba dhinac ma ay jirin ama khuseeya waxay ahayd uun af Soomaali meesha lagu qurxiyay ayuu buu ahaa waxaasi qarankan ma kala kaxaynayaan qaranka waxa la rabaa wixii la saxiixay ee aan nimanka kala saxiixateen iyo sida sheerarku u baxeen iyo Soomaaliya doorkay ku lahayd intaba in la helo la doonaya ilaa hadda waxaan idinka fadhinaa jawaab baan idinka fadhinaa ma doonayna hadal tiro inaanu media isu marino waxaanu doonaynaa oo kaliya oo aanu codsanay warka uu sheegay ninka wasiir dawladda arrimaha dibadda ee imaaraadku uu sheegay waa war culus weeye waxa weeye inuu heshiiskaasi Soomaaliya qayb laha oo Allahumma salli ala Muhammad idinkuna aad daraf ka ahaydeen ayuu ahaa waxa intaa uu heliyaa waxa makhraati u qabsateen wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo yiri annagu waxba maanu saxiixin Soomaaliya idinka marna wax ka saxiixda marna makhraati u qabsada annagu makhraatina u qabsan mayno waxna ka dhageysan mayno cidii wax ka saxiixateen waanu daba taaganahay Soomaaliya cidda wax la galan gashay ee marna tiraada sidan noola hadla marna tiraada sidan yeela waa idinka weey maanta arrintu waxay taagan tahay inaanu isweydiino maxaa lagu xaraashay
dekedii lagu xaraashay maxaa lagu bixiyey saldhig military oo ciidamo ka duulaan tagayaan ka tagayaan intuba ma cadda ummaddu ma cadda caddaayuun baan leenahay waa inta la isku haysano waa inta cidda khusaysan waa inay ka hadashaa